kulan wacan markale daawadayaal aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena caawa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dibdhac ku yimid shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarka magaalada Muqdisho oo la filayay maalinka bariya uu furmo haddaba war arrinka ku aadan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha RTN halka kaga soo warama Ibrahim Xaaji Yuusuf iyadoo lagu madalsanaa in maalinta berita ah magaalada Muqdisho uu ka furmo madasha wada tashiga horumarinta iyo nabadeynta caasimadda ka oo hore ugu dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa dib u dhac ku yimid sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho gudoomiye Taabid ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay dil habeennimadii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne ka oo loo geystay laba qof oo shacab ah isagoo uu sheegay in lagu raad joogo kooxihii dilka ka dambeeyay waxaan marka ugu horeyso aan halkan ka sheego shirkii ku saabsanaa shirweynihii wada tashiga nabadeynta iyo nabadeynta gobolka Banaadir ka qorshaysneed in la qabto beri oo taariikhda ku beegan 7 bisha oo uu socdo ilaa 8 bisha January 2018 cilado farsamo aawadeed oo soo wajahay shirka dib u dhacay oo beri lama qaban doono haddii Ilaahay gaarsiiyo waxa la qaban doonaa shirka insha Allah adiga taariikhda qaban doona dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah dhawaan ayaan taariikhda dib ka soo sheegi doonaa insha Allah waxaan ka codsaanaynaa shirkii abu talagalnay inuu beri qabsoomo in uusan qabsoomeyn oo dib u dhac ku yimid shirka waqtiga kale la qabanayana Ilaahay gaarsiiyo dib baan ka soo sheegi doonaa inta kadib waxaan rabaa inaan raacsiiyo mar walba dib u dhaca laakiin aan wada tacsiiyo markii xalka dhacay degmada Xamarweyne oo labadii qof gacanta ka xaqdaran dishay waxaan rajeynayaa insha Allah in cadaalad la horkeeno iyagana xisbiga Allah ka waraabiyo dib iyo xanuun badan ay maalin walba dareennaa tan iyo 14 Oktoobar in qof muwaadin ah waxba aan garabsan lagu waasana lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadda magaalada Muqdisho taan aad bay u xanuun badan tahay runtii oo maalin walba wax loo joogi karo ma ahayn oo dad masaakiin gacan ka xaqdaran ama wadiidka bixisada iyo disho sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dadka muqdishoodka dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta ku wadsiisaan Ibrahim Xaaji Yuusuf RTN TV magaalada Muqdisho